maanta taariikhdu tahay November 8 waxaanu joognaa xarunta wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa maanta la ka qabsamay fadhi ku saabsan fiisaha iyo arrinta maamulka hawada. Shirkaasi waxa gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. Waxaana ka soo qayb galay xubnaha golaha wasiirada ee stakeholderska ka arrintan ama daneeyaasha ka oo kala wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka wasaaradda amniga qaranka iyo arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda difaaca, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, la-taliyaha madaxweynaha arrimaha sharciga. Guddidaasi oo noqon doona kuwa qaran ee maanta kadib ka wada shaqayn doona arrimaha maamulka hawada iyo wixii la xiriira duulimaadida khilaafku inagala dhexeeyo Soomaaliya. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay soo saartay bayaanka hoos ku sheegan ee la xiriira arrimaha hawada iyo fiisaha. Maamulka madax bannaanida iyo badqabka hawada sare ee Soomaaliland. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay cadeynaysaa inay iyadu leedahay hawada, cirka, dhulka iyo badda xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ogolaanshaha isticmaalkeedana laga qaadan karo oo kaliya wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan shuruucda duulimaadyada qaranka iyo kuwa caalamiga. 2 fiisa iyo shuruucda socdaalka. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay cadeynaysaa in dalku galka ay dhawaan soo saartay Soomaaliya ee fiisa aanu khusaynin Jamhuuriyadda Soomaaliland aan lagu soo geli karin isla markaana ay Soomaaliland leedahay nidaam u gaara oo socdaalka iyo safarada. Siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee socdaalku waa in dalku galku yahay mid furan, visa on arrival. Qof kasta oo u safraya Soomaaliland wuxuu dalku galka ka heli karaa madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa Cigaal International Airport iyo Berbera International Airport. 3 shuruucda duulimaadyada hawada sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laga bilaabo November 10 dhammaan diyaaradaha isticmaalaha hawada sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa inay haystaan ogolaanshaha isticmaalka hawada ee Soomaaliland oo laga qaadanayo wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Diyaarad aan haysanin ogolaanshaha Soomaaliland ma mari karto hawadeeda. Cidii sharciga khilaaftana waxa laga qaadayaa tallaabooyinka la xiriira si waafaqsan shuruucda aviationka ee Soomaaliland iyo kuwa caalamiga ah. Baaqa beesha caalamka. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku baaqsaa hay'adaha caalamiga ah International Aviation Authority wadaagayaasha adeegyada duulimaadyada ICAO, IATA, qaramada midoobay iyo hay'adaha dawladaha ka dhaxeeya ee la yiraahdo bilateral and multilateral stakeholders inay ku baraarugaan dhibaatada weyn ee ka socota arrimaha hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ay keentay tallaabooyinka ay qaaday Soomaaliya ee ay ku siyaasadaysay maamulkii hawada iyo duulimaadyada rayidka ah oo ay ka dhigtay hub ay kula dagaalanto dawladda iyo shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo halis amni ku ah badqabka diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa rakaabka ee isticmaala hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku baaqsaa beesha caalamka tallaabooyinka hoos ku sheegan. 1 in la hubiyo dhexdhexaadnimada maamulka hawada sida uu dhigayo sharciga caalamiga iyo kuwa duulimaadyada ee qaramada midoobay. Meeshana laga saaro khaladka ku jira systemka thematic ay maamusho IATA ee madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland sida khaladka uu sheegaya inay ka mid yihiin Soomaaliya. 2 in la helo xal sharci oo lagu maareyn karo dhibaatada hawada ee Soomaaliya abuurtay maadaama xaqiiqada jirta ay tahay in Jamhuuriyadda Soomaaliland u madax bannaan tahay maamulka dhulkeeda, baddeeda iyo hawadeeda. 3 in la sameeyo habraac mechanism daahfuran oo la xiriira maamulka dhaqaalaha hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee sida khaldan gacanta loogu geliyay dawladda federaalka ee Soomaaliya. 4 in hay'adda qaramada midoobay ee duulimaadyada ICAO ay samayso qiimeyn madax bannaan oo lagu sameeyo maamulka duulimaadyada iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland lana sameeyo nidaam si toos ah loogula macaamilayo maamulka iyo duulimaadyada rayidka ee Soomaaliland. Allah ma hadle wuxuu ka soo baxay bayaankani guddida qaranka ee loo xisaaray arrimaha maamulka hawada.